بسم الله الرحمن الرحيم داوديال kusoo dhawaada barnaamijkii dhalinyarada oo idinka imanaya waa Bari TV xafiiskiisa magaalada Nairobi waxaana barnaamijka caawa ka soo qaadanaynaa lacagta iyo jacaylka keewa awood badan waxaana barnaamijka marti igu ah Hodan Cadceed Geele iyo Xasan Cabdinaasir Qaaqof kusoo dhawaada barnaamijka Hodman Cadceed Geele waa gabar dhalinyaro ah oo ku nool xaafadda Islii oona ah hal abuurada ayar hodan ugu horeen ku soo dhawo barnaamijka xarago aad baa mahadsan tahay waa dhownahay ayno soo qabto su'aashii ugu horeysay barnaamijkeena Hodman keewa awood badan jacaylka iyo lacagta hadaan ku hormaro xarago aniga khaasatan markaan ka hadlo fikirkayga Hodman ahaan aniga waxaan taageersanahay lacagta isla su'aashaas ayaan ku weydiinayaa keewa awood badan lacagta iyo jacaylka Xasan bismillaahir rahmaanir rahiim haddii anigu aan ka dhigto ama ku cabiro aragtidayda lacagta iyo jacaylka keewa awood badan waxaa awood badan jacaylka sababtoo ah waxa kale yiraahdo dusan jacayl jirin adduunku ma jireen adigoo heli kara jacayl ama taxgelin badan maxaa ku dooran lahayd lacag hodanay waxaan aaminsanahay haddii aniga aan lacag helo inaan taxgelin iyo waxa waaye jacayl badan aniga aan samayn karo aan abuuri karo wax barbarayna ma lahan markastana waxaa awood badan oo macnaha Soomaalidu ay qadarisaa mas aniga shakhsiyan aan qadariyaa lacagta sida ayaa ku abuuri kartaa jacayl maadaama qof aad jacaylan aan nolol la qaybsato ugu horeen qof aan jacayl haddaan nolol la qaybsado aan loo baahan aniga aan noqdo shakhsi asal madoorsho ah aniga waxaan ahay qof wax keeni kara waxna sameyn karo jacaylkuna ma aha wax si dabiici ku dhacay waxa qof sameeyo waaye marka qofka jacaylka sameeyay aniga ma aaminsanin inuu iga fiican yahay iga khibrad badan yahay marka waxaan aaminsanahay inaan jacaylka sameyn karo abuuri karo de awalba haddii qof aan jeclaan lahaa aan guursan lahaa jacaylku de qofku iskama keenin aniga asaga isla keenay sooma deemta anigi hadda hadduu xitaa asagoo usan ku jiro aniga kaliya jacayl waan keeni karaa waan aaminsanahay waan mahadsantahay aan u soo wareega dhanka Xasan qofka aad jeceshahay Xasanow haddii aad nolosha la wadaagto sidee aadna ka maarmi karin sidee ayaad u maareen lahayd noloshaada maadaama aad haysanin wax lacag ah adduunyadana ee lacagta kala dabarto ama ay kala wado horta adduunkan lacag ma kala dabarto jacayl baa wax kala dabara haddii dadku ay lacag haystaan laakiin aysan is jeclayn nolosha ay ku nool yihiin lama dhihi karo waa nolol raaxa leh xaqiiqatan laakiin qofka markii aad jeceshahay ama qadarin iyo taxgelin aad isku haysaan xitaa haddiina waxba haysan kalsooni iyo jacayl baad ku wada noolaan kartaan taasina waxaa waaye Soomaalida intooda badan waxay yiraahdaan lacagta awood badan marka waa tan keentay isqa qabsi iyo fariin badan inay Soomaalida ka dhexdhacdo ama maadsantahay aan su'aashaas mid lamid ayaa ku weydiinaa sidee ayuu jacayl ku abuurmaya iyadoo lacag jira ama sidee nolosha aad la qaybsanaysaa lamaanahaaga maadaama wax lacag yar aad haysan xitaa horta jacaylku ma aha wax suuq yaalo oo intii lacag la qaato la soo gadanayo waa dareen qofka Ilaahay ku abuuray bini'aadanka dareenkana haddii uu kugu abuurmo micnaheedu ma ahan inaad adigu isku beeri kartid waa wax Ilaahay dadku ku abuuro ku beero marka haddii Ilaahay qof aad dareen kugu abuuro qof aad jeclaatay hadii aad ma u baahnid inaad jacayl abuuratid kaliya waxaad u baahan tahay inaad jacayl ka dhawatid hodan sababta ay gabdhaha u daneeyaan lacagta ma sheegi kartaa xamdi waan ku sheegi karaa sababta gabdhaha ay u daneeyaan lacagta waxay tahay gabar kasta waxay rabtaa inay hesho nolol ku filan xataa adaa rabtay xataa anaa rabo sababta marka gabdhaha u daneeyaan lacagta waxa weeye gabar kasta waxay rabtaa nolol ku filan hamiga ku haminaysa inay hesho guri quruxsan inay degto gaari fiican inay ku socoto iyo inay dhar fiican xirato oo labis fiican xirato oo waxa waaye dadka asaagada ay la tartanto marka xaqiiqatan qofku hadduusan de lahayn lacag u haysan sharaftaada de waxaaba khatar in meel uga dhacaba dad tuugsays yaa ka mas'uula ila waxa waaye qofkan waxa waaye hadduusan waxba haysan wax ku maada laba qaawan isma qaado marka aniga waxaan dhihi lahaa lacagtu waa muhiim mid kale jirto walaalkii Xasan wuxuu ka dhawaajiyay furitaan dadka xataa saboolka gabdhuhu inta wiilasha sabool ugu samraan oo markii laba cunug saddexan u dhalaan oo hadhow wiilasha xataa ay taajiraan bay haddana furan oo ceyriyaan oo waxay dhahaan maxaan kugu falayaa gabarkaada ay raawi joogto magaaladani ay gabar dharka xirtay dharka fiican xirtay marka aniga waxaan aaminsanahay inuu lacagtu ay waxa waaye ay awood leedahay lacagta aniga waan taageeraa gabdhahan waxaan leeyahay taageera hodan gurigaas duusa jacayl ka jirin farxad ma taalo sidee ugu noolaan lahayd guri aan farxad lahayn adiga guriga usan jacaylku ka jirin horta waa runta farxad ma taalo laakiin waxa ka sii daran guriga aysan lacagta ka jirin haddii lacag la haysto waa la isasabi karaa waxa waa haddii xitaa gabadha ay masarti baa la siin karaa wixii dhacay baa la ilowsiin karaa laakiin haddaan lacagna jirinin waxa waaye aysan lacag jirinin anigu waxaan arkaa wixii dambi dhacay indhaha ka dadoo kale macnaha wax kasta oo waxa waaye imaado gabadha in isma moodso marka aniga isma moodso kuma noolaan kari iyo nolol waxa waaye aan waxa 50-50
ama kaba sii yarba. xasan maadaama wiilasha inta badan ay taageeraan jaceylka dhanka gabadhan ee hantida taageerto sidee ayaa ku xalin lahayd ama aad ula noqon lahayd lamaano maadaama gabdhihii ay taageeraan lacagta? horta gabdhuhu lacag ma wada taageeraan, dadka ilaahay qofba waxaa waaye hoob buu leeyahay. gabdho badan waxaa jira jacaylka yaqaan taageerana waxna jeclaada iyagana la jeclaado. marka dabcan anigu hadda xasan ahaan haddii gabar lacag doonaysa nolol inaan la wadaago diyaarba uma eh. sabab iban haddaan lacag haysto qof waxaan rabaa i dareensiiya nolosha adduunka raaxadeeda macaankeeda. marka haddii qofka aan lacag qof lacag raadinaysa haddii aan wax ka yiraahdo yani inaan nolol la wadaago aan damco qoftaasu muhiimadeedu waxaa waaye inay lacag iga abuurato ma ahan inay nolol u tusto. marka mar walba waxaan fiirinayaa qofkan intee saameyn la-eg ku yeelan karaa noloshaada oo yani inta jacaylka jacayl uu ku qaadi karaa. hodan maadaama aad taageersan tahay lacagta ma la socotaa ninka hantida leh ama lacagta leh uu iibsadaa gabdhaha oo maanta gabadhii qurux badanba lacag ayaa ka xigto, marka sidee ula noolaan lahayd nin noocaas ah? والله horta xarran way waa runta oo ninku haduu lacag haysto waxa way horta rag iyo damac way wada dhasheen xataa ka faqiirka anagu raadiyaa sida xaqiiqada ah ninka taajirkana sidoo kale lacag uu raadiyaa laakiin step way u kala fududahay oo ninkan de shiidka ah waxba uma fududa waxa laga yaabaa in la dhaho reer iga wareej laakiin ninkan lacagta saad sheegtay horta gabadhuhu inuu gato iyo inuu iibsado xitaa inuu waxa waaye suuraba uu sameeyo way u fududahay. laakiin aniga waxaan ula noolaanaya aniga ninka hadii aan uga cararayo dimcaha inuu naga keeno de anigu wanaag baan ahay naagaha anaa ka reebi karo waana aaminsan inaan ka reebi karo wayna jirtaa gabdho ka reeba nimankooda waxa waaye naagaha waana wax dhici karo waana wax jira oo aan huba aniga. wiilka aad jeceshahay hanti ma ku dooran lahayd ama wax lacag ma ku raaci lahayd? aniga hanti waan ku raacay lacag waan ku raaci lahaa hadduusan haysanin hadda laba qaabo isma qaadanaysa wax isku sheegin. okay wali wax jacayl hore ma ku soo maray maadaama aad taageersan tahay lacagta? aniga ma aaminsan inuu jiro qof uusan jacayl soo marin jacayl waa soo maray mid hantiyeysan u ahaa ma mid shiid u ahaa. okay see marka jacayl ugu qaaday nin shida maadaama aad rabinba nin shida wuxuu ii sheegay inuu lacag leeyahay maranka arki waayana waa kala harnay. aad iyo aad ma santahay in xasan aan u soo laabta dhankaaga ka hor soo kuma wacnay inaa wax barato oo shaqaysato inta jacayl shid aad qaadin. adduunka horta martabada kala duwan ama kala sareeyo leeyahay laftigeeda ma ahan qofku inuu jacaylkii ku soo boodo waa inuu taagtiisa hayaa. marka hore qofku waa inuu wax soo bartaa soo shaqeeyaa kadib waqtigii uu horta qofku guur usoo diyaar garoobo yuu jacayl qaadi karaa ama cid xulan karaa u jeclaado. laakiin dee cidan waxaa kan yidhahda waxba soo baran aan soo shaqayn laftigeeda jacayl inay kusoo boodo waxaa kan yidhahda wax suurtagal ah maaha. marka muhiimaddu waxaa waaye qofku markuu isagu soo diyaar garoobo inuu guursado ciduu guursan lahayd yaa waaye ma cid lacag wadataa mise waa cid wax jecelnaytaana anigu wax kan yidhahda qaba. okay waxaaba aaminsantahay cidda lacagta haysata inaysan waxba jeclaaninba? waa aaminsanahay inaysan waxba jeclaan sababtoo ah nin lacag wata oo haddii waa nin saylad soo aado rabo inuu wax gato nin lacag wata marka jacayl ma abuuran karo ma abuuri karo maalintii la isku qayb qaadayna waxa waaye iska sii soco oo mid kale soo gadanaya. okay marka adiga hadda maadaama aad taageerayso dhanka jacaylka wali wax jacayl ama ku soo maray? dabcan aniga waxaan dhihi karaa hadda waan jacayl cidaan u qaaday hadda ima soo marin. umana diyaarsanid hadda inaad jeclaad? diyaar waan u ahay laakiin waqtigan hadda la joogo maya. hodman soo kama gudbi karaan lamaanuhu lacag la-aanta iyo dhibaatada hadday marka hore isku xushaan jacayl? xamdiyey waa su-aal fiican waad mahadsan tahay. waa laga gudbi karaa lacag la-aanta laakiin aniga shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay baa waxay tahay hadduusan qofku lacag ba lahayn inuusan taakaba qaadi karin oo waxba uusan jeclaan karin lana jeclaan karinin. marka maybe way jiri karaan dad fikirka duwan qaba marka aniga kolley ma aaminsani. hodanay jacaylku wuxuu ka yimaadaa dareen qofka bini'aadanka ku abuuran maaha inuu ka yimaado jeebkiisa. sidee u aaminsan tahay arrinkaasi adiga? horta waa runta laakiin midda jirtaa waxay tahay horta jacaylku waa wax jira ha ahaatee waxaa ka awood badan lacagta. qofku hadduusan lacag haysan waxba uma qabsoomi karaan waxbana uma hagaagi karaan. marka waxaa aaminsan tahay jacaylkiisa waa hal bacaad lagu lisay? jacaylku waa hal bacaad lagu lisan biro ka hooseyn.
total waxa ma jeclaan karo ها هذه okay xasan arintaas maxaa ka qabtaa maadaama qof uu lacag haysanin oo dhalinyaro ah uu waxba jeclaan karin ama uu soconaynin jacaylkiisa anigu horta waxaan qabaa qof kasta adduunka ku nool inuu wax jeclaan karo isna la jeclaan karo tahay marka lagu leeyahay qofku lacag buu haystaa ma ahan inaan la jeclaan karin ama isagoo wax jeclaan karin tahay laakiin tan la diidan yahay waxa waaye ama anigu ka soo horjeedo qofku cid uusan jeclayn inuu lacag ku qaato laakiin qofku bini'aadanaysi jacayl kala saar ma dhihi karaan kaas jacayl marka adiga waxa aaminsantahay inaysan shaqo isku lahayn danaysi jacayl wax isgeli kara ma aha iyo wax isku meel buuxin kartaana okay marka sidee ayaa ku ogaan kartaa qofka sida dhabta ku jecel xasan hadda ku weydiiso ashaas horta sidii hore aan kuu sheegay wax ma soo jeclaan taasuna waxa ku ficnaan lahayd dadka jacaylka soo maray in la weydiiyo oo wax soo jeclaaday qaabkii ay ku ogaadeen qofka inuu jecel laakiin waxa tahay qof weyn oo macquul ah oo adduunka uu hormaray social media ay wax walba ku xiran oo filmaanta daawado sidee lagu garan karaa qof si dhab ku jecel kulay dareen ayaa leedahay haddii anigu ana cabiro qofka inuu ku jecel yahay waa dareemi sababtoo ah qofku markuu dhibtaada ka danqanayo buu ku jecel yahay laakiin qof aan dhibtaada ka danqanayn kuma jecla marka qofka hadduu dhibtaadana ka danqanayo horumarkaagana rabo wanaagna kula rabo jacaylku waa intaas adan maadaama aad diiday sideedaba jacaylka waxa jira ma ahan aad tiraahdeen marka aad guursato nin aan ku jeclayn ama aan wax jecel ku haynin ama hadduu xitaa ku jecel yahay maba aaminsanidba waxa ka aaminsantahay inuu qiyaal yahay marka sidee aan nolosha kula qaybsan lahayd ama aad lamaana dhab ku wada nool u noqon lahaydeen horta xamdiyey waad mahadsan tahay haddaan su-aashaada kaaga jawaabo horta noloshu dada horta isjeclayn ma wada noolaan karaan laakiin waxaan aaminsanahay aniga wax kasta markii la helo kadib in jacayl imaan karo waxaa aaminsantahay jacaylka guriga ayuu ka abuurmaa haa jacayl guriga ayuu ka abuurmaa markii lacag la helo kadib aana jacayl la helaa hadduu ilaahay xoolo siiyo dareen buu leeyahay wuxuu jeclaanaya laakiin ma aha in yirahdo qofka wuxuu leeyahay ma jeclaan karo hodan maadaama xasan uu dhahay qof walba oo bini aadan ah jacaylka waa wax ku abuuran oo qalbiga ka yimaado kumana xirna lacag iyo waxyaalo noocaas ah adigana aad tiraahde lacag ayuu jacaylka ku xiran yahay sidee isku waafaqayaan labadaas jawaabood xamdi horta waad mahadsan tahay aniga xasan waxaan laba qof haddana waan kala fikir dugunaan karnaa barbaleen ma lahan hase ahaatee aniga markasta waxaan taageeraa ama hadda aan taageersanahay ama ku baaqayaa in la taageero horta lacagta dee anigu waxaan aaminsanahay horta lacag la-aan uusan jacaylba imaanin xasanna sidoo kaleesna wuxuu ka dhawaajiyay inuu aaminsan yahay inaan waxa waaye jacayl la-aan aan si waxba qabso hagaagi karinin marka dee qofka lacagta leh waxaaba u sahlanba xataa inuu jacayl abuuro waxa insi u tahay u fududa sidoo ayuu ka abuurayaa jacayl maadaama lacag uu haysto maadaama lacag uu haysto qofkan waxaa u fududaanaysa inuu wax kasta oo qofkan uu ku xujeeyo uu sameeyo wax kasta oo qofkan u baahan yahay wax kasta oo qofkan kaga farxo wax kasta oo qofkan kusoo jiidan karo marka waxaa imaanayso qofkii xitaa aan lacagta haysan haddii waqti dheer jacaylkiisa laga meermeeri jiray qofkan in mar kastaba waxaa waaye jacaylkiisa u noqdo makinad wax qofka soo qabsadoo kale laakiin se isleedahay jacaylkaas wuxuu yahay mid danaysi oo meelo ku eg oo hadday lacagta dhammaato uusa jacaylkana dhammaanayo hadday lacagta dhammaato jacaylkana wuu dhammaan karaa borobaleen ma lahan laakiin haddii lacagtu ay dhammaato oo haddii waxa waaye lacagtu ay dhammaato jacaylkiisa uu dhamaaday waxaan la waayaynin jacayl kale oo isna lacag ku dhisan jacaylka dhabta sidii aan aaminsanahay ma ahan lacag jacaylka ma ahan inuu mar walba dhammaado haddana la raadiyo mid kale oo lacag leh siduu ku salaysnaan karaa jacaylkaas ama uu ku noqon karaa mid mustaqbal leh midkan hadda oo markuu jacaylka lacagtii hore ay dhamaatay jacaylkan dambe iyo lacag dambe aad heshay waxaaba fiicanba waxaaba laga yaabaaba inay ka faa'iido badan yihiin kumanaan jacayloo jira inoo meesha khayr ku jira adig ma ogin mogta okay mar walba adiga waxaa aaminsantahay inaad raadiso nin lacag leh oo jacayl la samayso nin lacag leh anina xataa waliga telefoonka ma qabanin okay hodan bala u soo noqda dhanka xasan gabdhihii maadaama ay rabaan lacag iyo nolol qurux badan oo ku salaysan lacag oo guri qurux badan iyo gaari maadaama adigana aad tahay wiil dhalinyaro ah oo hadeertaan aan weli shaqaysanin oo hanti aan abuurin sidee ayaa ku horumarin kartaa noloshaada ama gabadha lamaanahaaga sidee ayaa nolol kula wadaagi doontaa haddii aan ka hadlo aniga tayda iyo guud ahaanba dhalinyarada Soomaaliyeed ee la midka ah waxa kan yiraahdo qofku waa inuu shaqaystaa marka hore markii aad shaqaysatid noloshaada iyo adigu reerkaaga aad kaafin kartid nin kasta waxaan kula talinayaa gabar ku kalsoon oo jacayl tusin karta isna uu tusin karo inuu guursado laakiin gabar marka hore kaaga bilaabaysa akoonkaaga maxaa ku jira
muhiimadeedu waxaa waaye akoonku maalintu marto in iska sii baxda iyadana inay ka tagto in iska sii tagto muhiimadeedu waa sax hadda horan waxa ka dhawaatay waxay tiri maalintii lacagtu dhamaato mid kale aan raadinaya hadda kaas jacayl meesha ma yaalo xaqiiqatan adigana ma tiidfid meer oo maalinba qof ma raadinaysid waxaa la rabaa adduunka inaad nolol raaxa leh ku noolaatid sidoo kale maalinba inaad dhowr ilmood oo nin gaar ah dhalay sii wadid waxa waaye dhibkeeda leedahay lacagta aad raadinaysid dhibka kaaga imaan kara baa wax walba ka badan midda kale nimanka haddii ay og yihiin inay lacag marka horeba ku soo gateen sidii doonaan bay kaa yeelayaan xaqiiqatan way ku dhaawacayaan qalbigaaga dhaawacayaan marka nin qalbigaaga lacag ku dhaawacaya waxaa ku muhiimsan mid kuu dhayeeya laakiin aad gaajada ku wada seexanaysaan okay waa tahay xasan maadaama hodan ay tiraahday nin shiid ah nolol iyo jacayl ma samayn karo sidee ayaa isleedahay jacayl oo ku abuuri karta maadaama aad waxba haysan jacaylka anigu waxaan abuuri kara ma aha waa dareen ilaahay abuuro ciddii dareenkaas ilaahay ii geliyo baan jeclaan markaas anigu waxaan leeyahay inaan dhowrto markii aan cid jeclaado aan helo kadib inaan dhowrto laakiin anigu hadda jacayl ma abuuri kare cidban hadduu qofku lacag wato jacayl ma abuuri karo jacaylku waa dareen qofka ilaahay ku abuuro okay waa tahay xagga gabdhaha ma isleedahay waa lagu xulan karaa lacag maya isma leeyin hodman xasan maadaama uu yiraahday jacayl lacag waxay ku salaysan tahay marka ugu horeysa waa inuu qofka jacayl qaadaa kadib ayuu lacagtana helayaa sidee ayaa fikirka ka aaminsantahay taasi ragay wallaahi waad mahadsan tahay aniga waxaan ka aaminsanahay horta qofkan oo waxa weeye asagaan lacagta haysan oo is jeceshihiin asaga yaa qoraal ka haya inuusan weligiisa duxita lacag isu ku nacaynin waxa dhacdo gabdhuhu intay nimanka ugu samraan shiid baahi lacag la'aan duruufo kala duwan markuu ninku lacag yeesho horta inuu ka tago way dhacdaa wax badan oo uu dhaho awal dad badan oo aan haweysan karin baan hadda haweysan karaa oo dadka sidoo aqliga u saaxiibka ah wax kasta fahmaya marka horta lagama hayo ayaga nimankan qoraal cad inay joogayaan weligood hadii xitaa lacag hadii la waayo midna leedahay markay lacag helaan way tagayaan way aad iyo aad waa tahay xasan maxaa aragti noocee ka qabtaa fikirkaas maadaama gabar adigoo shiid aad guursata waxba ahiin kugu soo samartay noloshaas kadib markaa lacag hesha mid kale ka raacday taas waxaan oran karaa marka hore aan jacayl jirin sababtoo ah ninkaanu markuu gabadha hore jeclaanayay yani u sheeganayay jacayl dhab ah ma uusan qabin hadduuba lacag markuu helo ka tegayo marka jacaylka dhabtaa waa kii rafaad iyo raaxaba lagu wada noolaado marna waa aan la iska tegin okay marka waxaa leedahay awalba muusa jecleen markii hore uusan jeclayn hadduuba markuu lacag helo ka tegayo asagoo ka tegin ayuu mid kala guursanayaa taas waa wax ilaahay u baneeyay hadda ilaahay qof bini'aadamka wuxuu u baneeyay inay cidna ka hor istaagi karto okay marka waxaa taagantahay 4 ayaa noola baneeyay tii hore oo wali rafaadka ka soo kabsan ayaa mid kale labaad guursanayna maya in labada kala saaraa muhiimad ku jirta anigu ma qabo gabadhii hore oo aan rafaadka ka soo kaban ama adigoo aan awoodin inaad laba xas guursatid inuu ninku guursado laba xas ma qabo laakiin waxaan qabaa haddii uu awoodo kana soo bixi kara waajibkaas ilaahay saaray inuu 2 iyo 3 iyo 4 buu guursan karo laakiin waa haddii uu awoodo hadduusan awoodin laakiin ma qabo inuu guursado hodman maadaama ragga Soomaaliyeed ama Islaamka ama dhahana loo baneeyay 4 hadduu lacag kale maxaa ugu diidaysaa inuu 4 naxaas guursado oo noloshada maareen karo horta xamdiyey waad mahadsan tahay su'aasha isweydiinta mudan baa waxay tahay qofkaad shalay dib iyo dheef uu soo samartay oo asagoo waxa waaye adoo kale aad guursato waxba haysanin haddii maanta uu awoodiisa noqoto inuu qof kale kula guursado meesh waxaa ka cad jacaylku inay wax la isku maaweeriyo oo waliba jacaylka shiidkan uu yahay mid khiyaano ku dhisan qofkan shalay u samartay isagoo baahi ah isagoo cunug yar ah isagoo waxba haysan isagoo arday ah markuu maanta lacag kale oo nin bahalkii noqday oo nin isku filan uu noqdo inuu naag kala keeno oo haddii jacaylku uu ku dhow waxa waaye mid dhab ahaan lahaa mise wax jacaylkuba iskiis oo ahaan lahaa wax meel ku salaysan ama waxaan hadba xiisa iyo marba dabayl wadin weligina ninka naagtu ag joogi lahaa midda su'aasha weydiinta mudan ba waxay tahay nin naag jecel oo ku haysta naag kale muxuu ku falaya muxuu ka doonayaa naag labaad waxaa loo horta ninku naag wuxuu u guursadaa baahi jirta awgeed iyo jacayl inta way keenaan waxyaabo siyaabo kala fara badan way jiraan oo qofka uu ku dooran karo qofka uu guursan karo laakiin aniga waxaan aaminsanahay qof jecel haddii hadda ifan aniga naag ila guursanaa waxaan anigu waa iska tagi lahaa balftay waxaan aaminsanahay ninka naag raacay isku sheegaynaa okay marka adigoo lagu furnayaa iska tagaysaa
waa dhaqaaqi lahaa ninkan naakul guursaday maxaa aniga shaqo fadhiyo yaal baan isba ninka la keen uu tagi lahaa moogta waxaa dhici lahayd xataa in dadku xalbiito moogta okay maadaama uu naag kale hadduu guursado aad ka tagtid sidaad laftirkaaga noloshaada u maareynaysaa ilaahay furiin baneeyay labadii qof oo is adduunkan weyn ilaahay markuu sameeyay asaga ujeedo ka ilaahay kama lahayn laakiin wuxuu ujeedo ka lahaa waxay ahayd dadka labadii isfahan weedaa bal inay ku kala dhuntaan oo ay ku kala qarsoomaan oo waxa waaye qof kasta meesha nasteexa uu ku joogo marka nin hadduu naag guursado dee wax kur loo joogo maba ahaba واسا aniga aaminsanahay maya aniga diinta kama soo horjeedin islaamku diintu waa diin islaamku diintu waa nasteexo ilaahay baa noo soo dejiyay wayna banaantahay ninku inuu afar naag guursado laakiin aniga joyskeen ka hadlo xasan maadaama ay gabdhihii ka soo horjeedaan in afar xaas la guursado sidee marka lagu maareyn karaa noloshooda oo iyagana qalbigooda loo dejin karaa horta marka koobaad waxaa wanaagsan in la ogaado muhiimadda guurka marka la guursanayo ama labada qof ee lamaanaha is guursanayaan ma ahan ninku inay kaliya dan ugu jirto in reerkan la dhiso labada qof bad wax ka dhaxeeyo waa labaduba faa'iido ku qabaan labaduna dambe ku wataan hadii waxa ka yiraahdaa walaashay waxa ka dhawaajinaysa waxa tiri isagoo waxba haysan baa soo samaray isagoo saana waxaad ogaataa asbaynta uu ku samaray وأديكم waxba haysan buu sameeyay oo waliba xamaalkii iyo wax kan yiraahdo biil kareerka iyo oo raadinayo culays u saarnaa marka waxa waaye muhiimadu horta in la ogaado reerkan markuu dhisan yahay labada qofba inay dan ugu jirto oo labadooda looga baahan yahay qof walba inuu waajibkii ilaahay saaray ka soo baxo tan kale aad i weydiiso gabdhihii haddii ay diideen ragaan lacag haysan xataa anigu waxaan qabaa haddii in la shaqaysto haddii gabdhihii ay diideen ragaan lacag haysan waa teeda kale gabdhuhu ma wada diidin dabcan way jiraan kuwo lacag raadinaya laakiin kuwaasna waxaan kula talin lahaa inaysan lacag raadin jacayl raadiyaan marka ma isleedahay maadaama aad guursatay qof aan lacag haysanin nolosha gurigaas ma sii soconaysaa ama way sii soconaysaa oo waxa ku sii soconaysaa haddii lagu qanacsan yahay wax yarkaada la haysto intaas wax walba ka fiican wax walba iimaanka waa marka haddii saddex bir aan cunto la cunin maana afraad la helay intaasna lagu qanacsan yahay oo la isku jecel yahay muhiimadu waa intaas marka wax walba jacaylka ayaa ka weyn ayaa aaminsan tahay hodan haddii aad guursato lacag leh oo hanti iyo lacag aad ku raacdo oo nolol farxad leh aad haysanin oo haddana adigii aad sheegtay inaad naag ka cararaysa barina ragga lacagta la way iibsadaan dumarka maxaa is leedahay xamdiye horta waa mahadsan tahay su-aashaadaas waan usoo laabanayaa hal walaalkii xasan uu ka dhawaajiyaan wax yarna daba galo xasan wuxuu sheegay horta gabadha iyo ninku inay isku soo samraayeen oo gabadha ninku xataa uu naagtan dhib ku qabo usoo samraayay marka Soomaalida waxay ku maamaadaa wiil waa socde gabarna waa sugto surna waa kulmiye markasta waxa wax raadi oo dhib horta loogu samro waa ragga gabadhan dhima qabto gurigooda joogtaa hooyada aabaheed baa joogo waa gabar hadii aabaheed baa ka masuula hadii la waayo walaalkeed hadii la waayo gabadha waxay qabtaa sharafta ixtiraam inta la ag bay qabtaa waxa markasta dhibka loogu samro horta markasta waxa waaye gabdhaha hadhowna dhulka ku jiidan ka dhibka loogu samrana waa ragga intaan ka soo laabto taas waxaan usoo laabanayaa su-aashaada oo haddaad ka cararaysid naaga badan ninkan aad ku raacday lacag ninka lacagta lehna ay u fududahay inuu naag kasta guursado ninkayga anaa waxaan ka keensanayaa mise ninka aan lacagta ku raacay anaa waxaan ka keensanayaa inuusan xataa naag kala fiirinin taasna waa mid aniga igu xiran ee maahan mid qof kale laga rabo iyo mid cid kale aniga caawiso midna aan uga baahanahay midna ma aha marka waxaa is leedahay dumarka lala guursado ayaga ayaa jilicsan oo ka keensan way ragooda qofka hadduu kaalintiisa gabo soo wax ku maada lugta jeena dhaaftaa way jabtaa marka qofka hadduu kaalintiisa gabo waxaa dhacayso in xataa dadka kale bini'aadanka haday ku arkaan meel ka jilicsan inay ku tuntaan xataa waa khatar ma ogti waa wax dhici kara guursiga waxa ka aaminsantaa inuu yahay tumasho oo qalbigaaga lagu tumanayo in qalbigaaga lagu tumanayo in aanu ka gaabiyay in wixii aan waajibka u lahaa waajibkaaga gudan weysay waajibka gudan waa in hadda waxa waa in laga talaabsanayo waxa waaye oo ganaanka ninku wuxuu u baahan yahay naagtan wuxuu u guursaday hadduu macnaha ka waayo ama shalay wixii oo guriga isugu imaaday heli waayo waxaa khasaba ninku inuu gabar kale raadsanayo laakiin gabdhaha la guursana markasta waxaan dhihi karaa ayaga waa asdhigtay oo hawshooda waxa waaye gabay ama ka seexay shaqadoodii okay waa tahay xasan ma aaminsan tahay gabdhaha inta badan Soomaaliyeed oo labada xaas saddexda xaas afarta xaas la qabo inay yihiin kuwa waajibkoodii gudan waa ama xuquuqda ragooda waxa inta aanan su-aashan ka jawaabin haddii aan gadaal ugu laabto hadalkoodan hadal waxaa ka dhawaatay nin lacag leman raacaya
jacaylkana anaa ka keensanaya iyo inuusan naaga badan guursan taas wax isgeli karta ma aha sababta ninkan markaad lacag ku raacdo isagu lacagta wato isagaa ku amra isagaana ku xukuma amarkiisaad ku shaqaynaysaa waxba kama keensan kartid marka okay marka adiga waxaa taa qof la haysta qof la haysta baa taa waxna ma bedeli kartid sax laakiin haddii aad marka hore jacayl iyo kalsooni isku raacdeen markaas waa inaad bedeli kartid sax waxaad inaad wax keensan kartid oo aad ku xiri kartid inuu sanaa kala guursan waa tahay haddii aan soo laabto su'aashaada gabdhaha saddexda lala qabay ee labada anu ma aaminsani intooda badan inay gabeen waajibaadkoodii laakiin waxaan aaminsanahay nimanka guursanaya ama la guursanaya dumarka inay heleen fursad ay ku guursadaan dumar badan okay marka iyagoo ka faa'iideysanayo fursadooda ka faa'iideysanaya haddii guurkuna inuu in ninku xaasas badan guursadana ay sunno tahay waxaa la dhihi karaa marka fursadaas ay ka faa'iideysanayaan laakiin ma ahan gabdhaha inay gabeen marka adiga hadda waxaad rabtaa inaad guursato 3 ama 2 ama 4 wax walba horta qoraal waaye wixii ilaahay ii qoray waa meesheeda laakiin anigu sidaan ku aaminaya 4 inaan xiraan rabo insha Allah waliba adigoo waxba haysan ayaa doonaysaa inaad 4 xaas guursato maya ma doonayo awooddiidan ku xisaabtamaya hadda intay tahay okay marka lacag hesho ayaad isleedahay 4 guurso dabcan wali adigoo ku salaysan yahay 4taas xaas jacayl iyo kalsooni qofka bini'aadanka ma qaadi karaa 4 jacayl qalbigiisa ma qaadi karaa qalbiga ragga laakiin qalbiga dumarka ma qaadi karaa laakiin ragga waxaa aaminsantahay inaad qaadi kartiin qaadi karaa okay marka waxaan aniga leeyahay memory card ayaa kugu jira maahan kaasi ha qalbiga hal qof ayuu qaadaa memory card waxa ugu jira ilaahay igu riday midaan isku riday ma okay xasan aad iyo maasantaa hodan ka waran fikradiisa xasan maadaama uu dhahay qalbiga 4 qof uu qaadaa xamdiyey waxaad moodaa inay soo cadcadaanayaan su-aalaha ah inuusan jacaylka horta sal iyo raad midna uusan lahayn qofka islaam qofka bini'aadanka ah qalbigiisa aniga ma aaminsana hal qof ka badan inuu qaadi karo qofkii jacayl soo maray dee wuu fahmayaa moogta xasanna hadda waa qof akhyaar ah marka anigu ma aaminsanin qalbigu hal qof buu qaadi karaa laba uma qaybsan nimanka aad aragtid 4 naag 3 naag leh waa nolol ku dhisan khayaali iyo xaq oo la galaayo oo markaas dambi iyo dulub ka socoto inaad caawa qofkan waxa way marka la joogto aad xanaaq kula joogtay ka furtaan qofkan ma qortidna aad u xiisto dhaytiba ilaa xal guri u haysatay in ka qabtay okay maxaa ka aaminsantahay xasan maadaama uu dhahay gabdhaha qalbigooda hal qof ayuu qaadaa ka ayagana 4 uu qaadaa sidoo aragta hodan fikradaas Soomaalida waxay aaminsan tahay sheeko ah raggu haddii dumarka la dhahay way ka masuulsan yihiin waxa waaye wayna ka mag badan yihiin inay raggu dumarka kaga fiican yihiin meel kasto waxaa la hayaa in naga ka liito waxaa la hayaa gabar ragga ka fiican waxaa la hayaa gabar ragga u dhiganto waxaa la hayaa gabar wiil gabdhaha u dhigmo waxa uu caqli dhaaymo ama ka wasi caqli dhaaymo ay gacanta ku hayaan hagaanba horta caqligaana waa qofka ilaahay siiyo maskaxdaan iyo garashadan iyo wanaagan qofka ilaahay baa horta siiyo qofna intuu meel taga ma gato lamana iibsado waa wax ilaahay oo ku garto hiddo iyo waxa waaye wax sifo dadka aad dheer tahay oo ilaahay ku siiyo waaye ha ahaatee gabdhaha qalbigoodu asagu ma ahan dee wax yaroo intaas camal oo qalinka afkiisa waxaan aan qaadin maahan wiilasha qalbigoodana dee lama dhihin qalbigiina wuxuu leeyahay intaas oo barsadood ha lama dhihinin marka taas waxay ku cadaynaysaa jacaylka horta waxa soo cadaanaysa jacaylku inuu salaam wax sal iyo raad midna oo wax khiyaar ku dhisan marka adiga hadda waxa aaminsantahay inuu yahay jacaylka qiyaali jacaylku waa khiyaali adigoo waliba dhahay marka dhawaaji mar ayuu jacayl soo maray maadaama qiyaali uu yahay sidoo kugu soo maray wuxuu igu soo maray ninkan wuxuu igu bartay wuxuu igu yiri lacag baan leeyahay inta soo marka baan leeyahay inta soo guri baan leeyahay anigana marka waxaan ku saleysnaa midanaysa aan kaga jawaab su'aashaas waxay ahayd anigu de waxaan isri qofkan hadda guursato inta soo lacag inta hanti haysta wuxuu noqon karaa qof aad farxad ku wada joogi kartaan 2 qof de waxa waaye ku filan 3 qof aad qof kale uga kaaftoomi kartid 4 qof de adiga waxa waaye ku dabaanad qaadi kara haddii wixii de la waayeen waxa la cashbeena ugu orod gaban moogta marka asagin waa soo xirxiray okay marka adiga kaas qiyaali ah ma dhigi karnaa jacaylkaas ama midanaysi aha jacaylka horta dhan baa khiyaali ah laakiin kayga waxaan rabaa inaan dhan waa ka socdo jacaylka dhan khiyaali ah u jeeda adiga soo laabta dhanka xasan jacaylka sidiisa waa qiyaali ayay tiri hodan sidee u aragtaa taasi taas waxaan dhihi karaa sida hodan aaminsan tahay laakiin sida anigu aan qabo iyo dhalinyaro badan oo ila mid ah jacaylku ma ahan wax dhil ah jacaylku waa wax jira waa kalsooni hodan waxaa tiri danaysi iyo jacayl la kala saaro ma dhihi karaan intaas jacayl marka adiga waxaa aaminsan tahay inaysan shaqo isku lahayn danaysi iyo jacayl wax isgeli kara ma aha iyo wax isku meel buuxin kartaan hodan maadaama aad diiday sideedaba jacaylka waxa jira ma ahan aad tiraahdee marka aad guursato nin aan ku jeclayn ama
aan wax jecel ku haynin ama hadduu xitaa ku jecel yahay maba aaminsanidba waxaa ka aaminsantahay inuu khiyaar yahay marka sidee aan nolosha kula qaybsan lahayd ama aada lamaano dhab ku wada nool u noqon lahaydeen horta xamdiyey waad mahadsan tahay haddaan su-aashaada kaaga jawaabo horta noloshu dadan horta isjeclayn ma wada noolaan karaan laakiin waxaan aaminsanahay aniga wax kasta markii la helo kadib in jacayl imaan karo waxaa aaminsantahay jacaylka guriga ayuu ka abuurmaa jacayl guriga ayuu ka abuurmaa markii lacag la helo kadib aana jacayl la helaa okay marka jacaylka waxaa ka horeeya lacagta aad iyo aad iyadaa weyn aad iyo aad okay waa mahadsantahay hodan waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeena haddii aan ku siiyo fursad halkan caawiyaa ka salaamaysa ama maxaa ummadda soomaaliyeed ku daawanaysa ugu baaqi lahayd xamdi waad mahadsan tahay marka koowaad waxaan salaamayaa shaqaalaha tv-ga waa beri dhammaantood oo aada u horeyso adigoo xamdi xaraga ah marka labaad waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed dhammaantood inta midnimada soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed wanaageeda jecel marka saddexaadna waxaan salaamayaa hooyadii macaan iyo aabahay marka xigta waxaan salaamayaa walaalahay dhammaantood ilmo cabdisalaan cadceed geela ku kala nool yurub iyo africa waad mahadsan tahay gabdhaha soomaaliyeed maxaa ugu baaqi lahayd maadaama aad diida jecel gabdhaha soomaaliyeed waxaan ugu baaqi lahaa inay lacag taageeraan waxaad leedahay guursada rag lacag leh guursada rag lacag leh okay aad iyo aad u mahadsan tahay xasan adiga ummadda ku daawanayso haddaan fursad ku siiyo maxaad oran lahayd xamdi anigu waxaan oran lahaa gabdhaha soomaaliyeed waxaan ugu baaqi lahaa xorriyadiina ha ku gadanina lacag iyo noloshiina iyo farxadiina wiilashana waxaan ugu baaqi lahaa gabdhahu waa gabdhaheennii qalbigooda ha la ilaaliyo okay aad ayaa mahadsan tahay qof ay halkan aad ka salaamayso miyaa jira caawa kugu qaali ah oo niyadda ku hayso adiga xamdi xaragaaba niyadda kugu hayaa ku salaamaya aad ayaad u mahadsan tahay waa kaa qaaday marka labaad waxaan salaamayaa dhammaan shaqaalaha waaberi t v marka saddexaad waxaan salaamayaa dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ugu baaqayaa midnimo iyo wadajir iyo walaaltinimo okay aad ayaad u mahadsan tahay xasan daawadayaal intaas ayaa kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeeni dhalinyarada oo caawa aan ku falanqeyneynay jacaylka iyo lacagta keebaa awood badan oo nagala qayb qaateen marti inoogu ahaayeen xasan cabdinaasir qaaquf iyo hodman cadceed intaana mar dambe hawada ku kulmi doono waxaa idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu